injiilka sida yooxana u qoray cutubka 3 waxaa jiray nin ka mid ahaa farisiinta oo la odhan jiray Nicodemus oo yuhuudda taliya u ahaa. isagu habeenkuu u yimid ciise wuxuuna ku yidhi, macallimow, waanu ognahay inaad tahay macallin ka yimid ilaah, waayo nina ma samayn karo calaamooyinkan aad samayso haddaan ilaah la jirin. ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, runtii waxaan kugu leeyahay, qof haddaanu mar kale dhalan boqortooyada ilaah arki maayo. Nicodemus wuxuu ku yidhi, sidee baa nin mar kale ku dhalan karaa isagoo duqa? miyuu mar kale uurkii hooyadii geli karaa oo ka dhalan karaa? ciise baa ugu jawaabay, runtii waxaan kugu leeyahay, qof haddaanu ka dhalan biyo iyo ruux boqortooyada ilaah geli maayo. waxa jidhka ka dhashaa waa jidh, waxa ruuxa ka dhashaana waa ruux. ha la yaabin haddaan ku leeyahay waa inaad mar kale dhalataan. dabayshu way u dhacdaa meeshay doonto, waxaadna maqashaa xiinkeeda, laakiin ma ogid meeshay ka timaado iyo meeshay u kacdo. waa sidaas oo kale qof kasta oo ruuxa ka dhashaa. Nicodemus ayaa u jawaabay oo ku yidhi, sidee baa waxyaalahaas u noqon karaan? markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi, ma waxaad tahay macallinka Israa'iil oo aadan weliba waxyaalahaasna garanayn? runtii waxaan ku leeyahay, waxaanu naqaan ayaanu ka hadalnaa, oo waxaanu aragnay ayaanu ka marag fognaa, idinkuna maraggayga ma aqbashaan. haddaan wixii dunidan idiin sheegay oo aad rumaysan weydeen, sidee baad u rumaysanaysaan haddaan waxa jannada idiin sheego? ninna jannada kor uma tegin, kii jannada ka soo degay maahee, waana wiilka aadanaha oo jannada jooga. sidii muuse abeesadii kor ugu qaaday cidlada, sidaas oo kale wiilka aadanaha waa in kor loo qaado, in mid kastoo isaga rumaystaa uu lahaado nolosha weligeeda. ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay, in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin, laakiinse uu lahaado nolosha weligeeda. ilaah wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ku badbaado isaga. kii isaga rumaystaa ma xukumna, laakiinse kii aan isaga rumaysan hore ayaa loo xukumay, maxaa yeelay wuxuusan rumaysan magaca wiilka ilaah oo keliya oo dhashay. kan waa xukunka, nuurka ayaa dunida yimid, dadkiise waxay nuurka ka jeclaadeen gudcurka, maxaa yeelay shuqulladoodu shar bay ahaayeen. nin kastoo shar falaa nuurkuu nabcaadaa, umana yimaado nuurka si aan shuqulladiisa loogu canaanan. laakiinse kii runta falaa nuurkuu yimaadaa si shuqulladiisu u muuqdaan in ilaah laga sameeyey. waxaas dabadeed ciise iyo xertiisii waxay yimaadeen dalka yuhuudiya, oo meeshaas ayuu iyaga la joogay oo dad badan ku baabtiisay. yooxana wuxuu dad ku baabtiisayey caynoon oo ku dhow saalim, waayo meeshaasu waxay lahayd biyo badan, iyaguna way yimaadeen waana la baabtiisay. waayo yooxana weli xabsiga laguma tuurin. sidaa aawadeed waxaa ka dhex kacay yooxana xertiisii iyo nin yuhuudi ahaa weydiis oo daahirinta ku saabsan. markaasay u yimaadeen yooxana oo ku yidhaahdeen, macallimow, kii kula jiray webi urdun shishadiisa oo aad marag u furtay ayaa dad baabtiisaya, oo dadka oo dhan way u imanayaan. yooxana waa u jawaabay oo ku yidhi, ninna waxba ma heli karo haddaan jannada laga siin. idinka qudhiinnu markhaatiyaal baad tihiin inaan idhi, anigu ma ihi masiixa, laakiin hortiisa ayaa laysoo diray. kii aroosadda qabaa waa arooska, laakiin saaxiibka arooska oo ag taagan oo maqla isaga aad buu ugu farxaa codkii arooska daraaddiis. sidaa aawadeed farxaddaydu waa dhan tahay. isagu waa inuu kordho, aniguse waa inaan yaraado. kii xagga sare ka yimaadaa dhammaan ayuu ka sarreeyaa, kii dunida ka yimaadaana waa kii dunida, oo wuxuu ka hadlaa dunida. kii jannada ka yimaadaa dhammaan ayuu ka sarreeyaa, wuxuu arkay oo maqlay waxaas ayuu ka marag furaa, ninnana maraggiisa ma aqbalo. kii maraggiisa aqbalay wuxuu xaqiijiyey in ilaah run yahay, waayo kii ilaah soo diray ayaa hadalkii ilaah ku hadla. maxaa yeelay isagu qiyaas kuma siiyo ruuxa,
aabbuhu wuu jecel yahay wiilka oo wax walba ayuu gacanta u geliyey kii wiilka rumaystaa wuxuu leeyahay nolosha weligeeda kii aan wiilka rumaysanse nolosha ma arki doono laakiin cadhadii ilaah ayaa ku taal isaga